السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalayaal waa magaaladii muqdisho iyo barnaamijkeenii shaqayso hashaxaadine halkan joogaa runtii waa guri la dhisayo waxaan la joogaa waa dadkii dhisayey dadku waa labo dad nafaf dhisa iyo dad guryo dhisa oo adduunyo dhisa weeyaan runtii maanta waxaan u imid walaalahay asxaabtaydii reer muqdisho raggan aad arkaysaan waa rag runtii maalaya muruqooda maalaya rag runtii gacmahooda ku shaqaynaya wax way wada barteen qalin wax waa ku waayeen raggan aad arkaysid in badan xoog ayaa la geliyey waalid ayaa geliyey xoolaa la geliyey wakti ayaa la geliyey waktigii la geliyey ilaa iyo jaamicaddiyaa laga baxay dugsi saraa laga baxay kollejiyo iyo macaahid baa la dhameeyey laakiin qalinkii shaqo wuu siin waayey xafiis way ku heli waayeen madax way ku noqon waayeen maalin way kaga taajiri waayeen qalinkii laakiin eeg islaamkeenna iyo diinteenna quruxda ay qabto qalinka waxay ka hormarisay xoogga iyo muruqa ayay ka hormarisay waad garanaysaan iqra waktigii la soo dejiyey xabiibkeena salى الlahu عalayhi wasalam lagu dejiyey waad garanaysaan 40 sanuu jiray ka hor waxba lama akrinaynin waxna lama qoraynin laakiin dadku muxuu ku noolaa waxay ku noolaayeen muruqooda ayay maalayeen muruqa waa ka horeeyaa qalinka 8 sanuu jiray xabiibkeena salى الlahu عalayhi wasalam markii uu ari ku raacayay duleedka magaalada maka oo uu reer dhan reerkii uu dul saarnaa abaa طaalib iyo ilmihiisa uu maaragtay ku biilayey 12 jir buu ahaa waktiguu wax rogrogayey oo uu ganacsiga waday waktigii uu runtii cizigiisa ilaalinayey isagoo agoon ah 8 sano jira ayaa wuxuu diiday reer inuu dulsaar ku noqdo guriga abaa طaalib waa adeerkii oo lagala dardaarmay wuu diiday wuxuu yihi wax adiga aad keentay abaa طaalib ilmaha yar yar aad u keentay cuni maayee aniga oo 8 sano jira ayaa xoogayga maalaya soo dhididaya ari raacaya joornaatiga aan keenan doonaya ilmahan inaan ku dhaqaaleeyo oo aan ku biilo allah ya ciziga qofku wuxuu sharaf ku leeyahay xooggiisa in uu maalo in uu muruqiisa maalo diintu way dhiiri gelisay diintu way ogeyd xabiibku wuu ogaa in aan qalin wax lagu wada helaynin idaylkeen inaynaan helaynin xafiisyo idaylkeen inaynaan madax noqonayn bulshada qof walbaa meel inuu ka qabto ayaa loo baahan yahay diinteenu waxay aad iyo aad u dhiiri gelisay waa maxay waa in xoogga la maalo waa ka uu dhahayo xabiibkeena salى الlahu عalayhi wasalam isagoo dhiiri gelinaya yaa u fadli badan maxaa u fadli badan wax la qabto insaanka uu xooggiisa ku bixiyo wakti uu geliyo oo uu ku noolaado shaqo maxaa u fadli badan wuxuu leeyahay camalu الrajuli biyadihi wa kulu baycin mabruur qofka waxa gacantiisu ay qabato gacanta wuxuu ku qabto ee uu maalo dhagaxa uu jebiyo qoryaha uu guro malaygu uu la soo baxo birta uu tumo kabaha uu tolo wax uu baalasho
carada oo u qaso beerta oo u falo camalu rajuli biyadihi ayaa u qiimi badan maxaa yeelay eeg mar kale waa u dhahayo sida noo khayr badan isagoo sheegaya xabiibka salى الlahu عalayhi wasalam waa ka u dhahayo لأn yأخذa أxadكم xablah ثuma yأتي الjabل fayaأتي bxusmaة min xaطب عalى ظahrihi fayabiicaha fayakufa اllah bha wجهه khayr min an yسأل الناasa أcطwه أw manacuuه inuu qofka xarigiisii qaato oo uu buurta aado oo uu xirmo qoryo ah uu dhabarka ku soo qaato may fahmaysaan may fahmaysaan waxaan leeyahay in uu qofka xarigiisa intuu qaato faaskiisii qaato buurta uu tago geedaha uu soo guro dhabarka uu ku soo qaato oo uu iibiyo markaa iyada ah oo uu lacagtii intuu soo qaato uu ku ilaashado maxay biyaha wejigiisa biyaha wejigiisa inuu ku dhowrto gacantiisu inay hooseyso uu kaga dhowrto gacantiisa inay ku sarrayso uu ku raadiyo ayaa waxay uga khayr badan tahay in uu dad wax weydiisto oo uu shaxaatamo oo uu hoorsado oo uu dul saarnaado iga dhiib iga bixi isii inuu yidhaahdo taas ayaa ka khayr badan oo markaa la siiyo ama loo diido labaduba waa ceeb adigoo xoog qaba adigoo dhalinyaro ah caafimaad ilaahay ku siiyey in aad shaxaatantid dadka wax weydiisatid xooggaadii aadan ku camal falin xooggaadii aadan ku shaqaysanin garbahaagii aadan ku shaqaysanin caafimaadkaadii aadan ku shaqaysanin oo aad markaa kadib aada baryootantid haddii lagu siiyo waa ceeb haddii lagu diidana kaba sii daran waa weji gabax marka maxaa la dhiirigelinayaa waxaa la dhiirigelinayaa waa shaqada la dhiirigelinaya shaqada inuu qofka insaanka qabto ayuu ilaahay dhiirigelinayaa maxaa la diidan yahay eeg waa ka haddana cabdullaahi ibni mascuud waan ku celceliyaa daa'iman saxaabiga jaliilka ah radia allahu canhu wa ardaa maalin buu salaamay rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh gacmihiisu waa adkaadeen siduu u shaqaynayey dhagax jebiya beer falya qoryo gurya god qodya gacmihii baa adkaaday guri dhisya gacmihii baa adkaaday cabdullahi ibni mascuud markuu gacmaha saaray rasuulku sal slm oo uu arkay baa wuxuu yihi gacantiisoo adag qolof noqotay sida adiga ay qolof kuu noqotay gacantaada sida adiga birtaasaa samaynaysaa ee kuu noqotay eeg raggan aad arkaysid gacmahoodu waa wada adag yihiin markuu sidaan u salaamay rasuulka salى اllahu عalayhi wasalam cabdullaahi ibni mascuud oo uu arkay gacantiisoo adag aad buu u farxay kama una nixin wuxuu yihi gacantan waa gacan ilaahay iyo rasuulkiisu ay jecel yihiin allah eeg wuxuu dhiirigelinayo ma aha keliya in uu joornaatigii inuu helay keliya ma aha bal shaqadan aad sharaftaadii ku dhowratay shaqadan aad ku ilaashatay biyaha wejiga shaqadan gacantaadu ku sarrayso shaqadan aad ubadkaaga ku biilanaysid shaqadan aad waalidka wax ugu qabanaysid shaqadan calooshaada aad ugu qaban shaqadan cizigaaga aad ku dhowraysid ayaa haddana waxaa la yidhi ilaahay iyo rasuulkiisuna oo kugu jeclaanayaan allahu akbar macnaha maxaa waaye waa cibaado weeyaan shaqadan shaqo cibaadaa qabsanaysaan idinka marka maanta waxaan doonayaa idaylkiin inaad ogaataan shaqadan aad qabanaysaan waa shaqo ilaahay iyo rasuulkiisu raalli ka yihiin waa goorma laakiin haddaydan iska hadlaynin kish aydan gelinin khiyaano haddaydan gelinin soo ma garan sababtoo ah ilaahay rasuulku wuxuu diidayaa oo uu leeyahay qawda maqashii waxna ha u qaban looma baahna ninkii guriga lahaa markuu yimaado ama lagu arkayo kormeeraha markuu ku arkayana inaad qaadid oo aad bahashii samaysid oo waxa mashquula aad iska dhigtid marka ninkii lahaa uu kaa tagana sheeko in la bilaabo shaqadaadii baad ku ciyaaraysaa taas ma aha miduu ilaahay jecel yahay soo maha ilaahay muxuu jecel yahay haddii lagula joogo iyo haddaan lagula jooginba cidle ma ihid adiga soo maha waxa kula jooga waa allah waxa ku ilaalinaya waa allah amaanaad qaaday ninka guriga iska leh ee joornaatiga ku siinayo wuxuu ku siinayo waa in waxaadu xalaal noqdaan amaano wuu kugu aaminay marka maxaa la rabaa qof walba waxa lagu aamino ha yaraadaan ha weynaadaan
sidii ay ahayd hadday uga soo baxaan wallaahi ilaahay intaas yaruu barakeynaya noloshaada uu ku ilaalinayaa xalaashu waa caafimaad shaqadiinu waa caafimaad shaqo wanaagsana bulshada u haysaan yaan lidin caayin dheg ha u raaricina ciddi idin caysa guryuu dhisaa'i fuundi waayi fuundiga wallaahi waa sharaf fuundigu waa cizi guryo dhisku waa sharaf waa cizi waa ku faraxsanahay maanta in aan idinkala qayb qaatay fargaaska inaan idinkala qayb qaatay waan ku faraxsanahay in aan idin dhex joogo waan ku faraxsanahay inaan idin dhiiri gelinayo laakiin waxaan idinkugu bishaaraynayaa dhididkiinaan boorka wejiga idinka qabsaday dharkaa wasakda idinka gaadhay gaajada inaad gaajaysantihiin baa laga yaabaaye oonka intuba waxaad ogaataan waa wada ajr guryaha waxaad ku laabanaysaan idinkoo ajar wata idinkoo xasanaad wata idinkoo joornaati jeebka maaragtaaye hadhow waa iska dhaqaysaan reerkiina si farxadoo xalaala ugu noolaanaysaan waa garatay soo maha marka waxaan idinku dhiiri gelinayaa hawshaan hala wado shaxaadkana la iska ilaaliyo ha fariisanina muruqiina ka faa'iidaysta waktigiina ka faa'iidaysta caafimaadkiina ka faa'iidaysta wixiinuna xalaal ha noqdaano ballanteenu waa shaqayso ha shaxaadine shaqayso ballanteenu waa shaqayso ballan sow maaha in aan shaqaysano oo aynan shaxaatamin allah idin barakeeyo aad iyo aad baan idin salaamaya Mm-hmm.